dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta dowladda Turkiga kala wareegay gaadiid dagaal iyo agab kale. Gaadiidkan oo ah nooca gaashaaman ayaa waxaa loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor, kuwaasi oo ay tababarto dowladda Turkiga. Munaasabadda wareejinta waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage, oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen safiirka dalkaasi Turkiga iyo saraakiil ka socday safaaradda dalkaasi. Safiirka dalka Turkiga Maxamed Yilmaz ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya, isagoona sheegay in dowladda Turkiga aysan ku ekaan doonin kaliya tababarada ciidamada, balse door muhiim ay ka qaadan doonto sidii loo qalabayn lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage ayaa si wadajir ah ugu mahadceliyay dowladda Turkiga, iyagoona sheegay in Turkiga uu yahay walaal u dhow Soomaaliya, door muhiim ay ka qaataan dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. sidaas oo kale inuu mahad celiyo madaxda Soomaaliyeed ee runtii noo suurta geliya ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dib u dhiskiisa haday noqon lahayd dhinaca tababarka, haday noqon lahayd dhinaca tayada, haday noqon lahayd dhinaca qalabka iyo haday noqon lahayd tasiilaadka kale ay u baahan yihiin inayna siiyaan fursadaha noocan ah oo ay nagu caawiyaan saaxiibadeena qaaliga ah si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalintii uu lahay oo u buuxiyo. aad iyo aad ayagana u mahad celinaya. ugu dambeyntii inaan u mahad celiyo dowladda Turkiga, guud ahaan shacabka Turkiga iyo madaxdiisa kala duwanba taageerada iyo runtii gacanta saaxiibtinimo iyo midda walaalnimo ee ay nala garab taagan yihiin ee ay dib ugu dhisayaan hay'adaha amniga Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si aan kala go'o lahayn. Turkiga waa mid ka mid ah saaxiibada caalamka ugu wanaagsan Soomaaliya, waxa uu door muhiimsan ka qaadanaya sanadadii la soo dhaafay tababarada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sidii uu qalabayn lahaa, iyadoona dhowr goor dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Turkigu uu kaalin weyn ka qaatay dhismaha dib u soo celinta ciidamada qaranka Soomaaliya.